nabadda kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada markii barnaamijkan arrimaha siyaasadda ay garqaad mid qodobada wararka aan kusoo qaadan doonana waxa ugu waaweyn maamulka somalilan ayaa waxa uu xukun toogashaa ku fuliyey saaga ilaa iyo 6 ruux oo ku jiray xabsiga magaalada hargeysa. xildhibaan fiqina waxa uu ka digay caqabad ka dhalan karta doorashooyinka ka dhacaya deegaanada galmudug isagoo sheegay in galmudug ay kasoo socoto 2 maamul oo isdiidan. jubbaland waxa ay 8 qodob ka soo saartay xadgudubyada dowladda federaalk soomaaliya ku haysay iyo weliba halista ka dhalan karta mustaqbalka. arrinta qabashada musharaxiinta u taagan gudoomiyaha baarlamaanka galmudug oo dhuusamareeb ka bilaabatay iyo weliba ololihii ugu dambeeyey oo deegaanka ka socda. iyo dowladda suudaan oo ka hadashay afgembigii fashilmay ee shalay ka dhacay dalkaasi suudaan. qodobadaasi weliba waa qodobo kale ayaanu barnaamijkeena intaan wada kugu jirno daawadayaal kusoo qaadan doonaa kuna falanqayn doonaa. aanu ku bilownaya maamulka somalilan ayaa maanta waxa uu xukun toogashaha ku fuliyey 6 ruux oo hore maxkamadda somalilan ugu riday xukun dil toogashaha. raggan waxaa saaka lagu toogtay xabsiga mandheera oo ah xabsiga ugu weyn ee somalilan. raggan toogashada lagu fuliyey ayaa lagu helay dambiyaha inay dilal ka geysteen deegaano kamid ah maamulka somalilan. raggan xukunka toogashada lagu fuliyey ayaana kala ah axmed guray, farxaan maxamed xasan, cabdulaahi ismaaciil xayd, caydaruus khadar haybe, khadar calayl xasan, maxamed cusmaan. raggan toogashada lagu fuliyay ayaana sanado badan waxa ay ku xirnaayeen xabsiga mandheera halkaas oo ay ahaayeen kuwo ku sugaya in la toogto. waxaana baraha bulshada dhaqso ka bilowdatay eedeeme iyo weliba sidoo kale lagu eedeynayo maamulkaasi somalilan inuu xukun toogashaha ku fuliyey raggan oo qaarkood la sheegay inaysan gelin dambiyo waaweyn marka la eego dilka toogashada ee maanta lagu fuliyey. waxaana sidoo kale baraha bulshada aada looga hadalhayaa arrinta ku aadan dilka toogashada ee somalilan saaka ku fulisay 60 qof iyadoona lagu eedeynayo in xabsiyada magaalooyinka qaar ee somalilan ay ka buuxaan dad galay dambiyo waaweyn kuwaasoo ilaa hadda aan la keenin cadaaladda. dhanka kalena xildhibaan axmed macalin fiiq ayaa sheegay in galmudug ay ku socoto waddo ay ku dhismi karaan 2 maamul oo isdiidan kadib markii axmed ducaali gelle xaaf uu gaalkacayo ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo uga soo horjeedo howlaha maamul gulisada galmudug ee ka socota dhuusamareeb. axmed macalin fiiq ayaana sheegay in galmudug aysan qaadi karin 2 madaxweyne, 2 gudoomiye baarlamaan iyo weliba 2 maamul oo isdiidan haddii uusan madaxweyne xaaf u turin oo uu tanaasulin sida uu yiri. galmudug waxay ku socotaa waddo ay ku dhismi karaan 2 maamul oo isdiidan, 2 madaxweyne, 2 gudoomiye baarlamaan haddii axmed ducaali gelle xaaf uu turin oo reer uusan hadda uga darin meesha ay galmudug joogto ayuu yiri. waxauna sheegay in galmudug ay soo mareen dhibaatooyin kala duwan gaar ahaana 3 sano oo khilaaf kusoo jirtay islamarkaana wixii hadda ka dambeeya loo baahan yahay in laga gudbo. reer galmudug wax ka dhexeeya ma jiraan dad daacad ah oo hawl leh oo heshiis yaqaan ayay yihiin. 11 bilood ayaa maamulkaasi dhistay 2015 oo eber laga bilaabo ayuu yiri xildhibaan fiqi. madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday axmed ducaali gelle xaaf ayaa magaalada gaalkacyo waxa uu ka wada kulmo siyaasadeed oo uu maamul kale uga dhawaaqayo deegaankaasi galmudug. waxa uuna xaaf sheegay in maamulka ka soconaya magaalada dhuusamareeb uu yahay mid ay dowladda faragelin ku haysay islamarkaasna uusan ahayn maamul u madax banaan yihiin dadka deegaanka ee galmudug. waxa uuna sheegay in maamulka uu ka dhisaya magaaladaasi gaalkacyo uu noqon doono mid cadaaladda ku salaysan islamarkaasna beelaha dhammaan ee deegaanadaasi galmudug ay iska dhex arki karaan. xaaf oo ahaa madaxweynihii muddooyinkii ugu dambeysay ee deegaanadaasi galmudug ayaa waxa uu marar badan heshiis la galay dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya walow marar badan qaarkoodna lagu arkay isagoo oo meelo kale ka hadlaya kana baxay heshiisyadaasi. waxaana kamid ah heshiiskii ugu dambeeyey uu la galay xukuumadda oo uu markii ugu dambeysay muqdisho tegay uu sheegay in dhammaanba arrimaha ku aadan doorashada deegaanadaasi galmudug uu u xilsaaray wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya balse hadda ayuu waxa uu dib u bilaabay allaha doorasho iyo weliba maamul cusub inuu ka barbardhiso kan laga dhisayo magaalada dhuusamareeb. dhanka kalena dowlad goboleedka jubbaland ayaa waxay soo bandhigay 8 qodob oo war-saxaafadeedka uga hadlayaan intiisa badan xadgudubyo dowladda ay ku sameysay maamulkooda sida ay sheegeen. xubno uu horkaciyay maxamuud sayid aadan oo ah madaxweyne ku-xigeen koowaad ee jubbaland ayaa waxay gaareen gobolka gedo iyadoo u kuurgelaya xaaladda gobolkaasi. waxaana war-saxaafadeedka lagu muujiyey doorka dowladda dhexe ee duminta jubbaland, xayiraada la saaray ee reer jubbaland iyo weliba burburinta dastuurka iyo dowladnimada ay villa soomaaliya sameynaysa ilaa lagu yiri. xaliga wasiir janan oo bishii afraad sii cagacageynaysa ayaa war-saxaafadeedka lagu dhex arkaa karaa kaas oo khalad iyo ciqaab aan mudnayn lagu tilmaamay in wasiirka la xiro.
ugu dambeyntiina waxay Jubbaland beesha caalamka wargelisay culayska ay kala kulmayaan dowladda federaalka sida awgeedna ay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan reer Jubbaland ugu baaqeen inay isku tashtaan iskuna duubnaadaan. Qodobada ay soo saareen ayaa waxaa ka mid ah kow in shacabka dowlad goboleedka Jubbaland iyo weliba dowladooda waxay xaq u leeyihiin inay u maamushaan ama qabsadaan doorashooyin si xor iyo xalaal ah waxayna fuliyaan waajibaadkooda dastuuriga ah. Hase yeeshee waxaa nasiib darro ah baa la yidhi in xukuumadda federaalka ay qaadatay tallaabooyinkani guracan doorashooyinkii kadib. laba xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay dowladda goboleedka Jubbaland iyo weliba shacabkeeda kula kacday tallaabooyin isxiga oo dhammaantoodba baalmarsan dastuurka dalka iyo weliba hanaanka federaalka ee Soomaaliya qaadatay. xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyadoo ku tuhmaysa dastuurka dalka xaqa muwaadinka iyo weliba xasaanada muwaadiniinta bishii Agost ee sanadkii hore waxay garoonka aadan cadde magaalada Muqdisho ka afduubteen baa wasiirka amniga ee Jubbaland goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Janan kaasoo si sharci darro ah loo afduubtay laguna haysto gudaha Muqdisho. afarna xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay qaadatay tallaabo ciqaab wadareed oo ay ku sameysay shacabka Jubbaland iyadoona saartay cunaqabateyno xagga gaadiidka hawada taasoo ay ka dhasheen dhibaatooyin bini'aadnimo. tallaabadaasna waxay keentay baa la yidhi xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ay ku xadgudubto xaqa iyo weliba xasaanada muwaadiniinta Soomaaliyeed sida madaxweynayaashii hore ee dalka oo la sheegay inay sheega ka celiyeen inay soo aadaan deegaankaasi Jubbaland. dhan kalena guddiga doorashada guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta ka guddoomay musharaxiinta guddoonka baarlamaankii labaad araajida iyo weliba taariikhda nololeedkooda. guddigan ayaa waxaa araajida iyo weliba taariikhdooda kala wareegay xildhibaan maxamed nuur cagal, xildhibaan cabdinaasir aadan cusmaan iyo weliba cabdulaahi axmed calasow oo isku soo sharaxay xilka guddoomiyaha baarlamaanka ee Galmudug. sidoo kalena waxaa raajadii weliba taariikhdooda kala wareegeen sheekh axmed maalin oo u tartamay guddoonka ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka Galmudug iyo xubno kale. guddiga doorashooyinka guddoonka baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa shalay oo Talaado ahayd waxa ay soo saareen shuruudaha lagu doonayo musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoonka baarlamaanka ee Galmudug. waxayna arrintani ku soo aadaysaa iyadoo meel gabagaba ay marayso maamul u dhisidda deegaanadaasi Galmudug iyadoona lagu wado in soo baxo madaxweyne cusub iyo weliba madaxweyne ku-xigeen kale. ugu dambeynna dowladda Suudaan ayaa sheegtay inay dib u furtay hawada dalkaasi iyo garoonka diyaaradaha ee Khartoum kadib shaqaaqadii shalay caasimada dalkaasi ka dhex martay ciidamada dowladda iyo askar daacad u ahayd madaxweynihii xilka laga tuuray madaxda golaha dowladda ee Suudaan Jenaraal Cabdifataax al-Burhaani ayaa sheegay in laba askari la dilay xilli ciidanka dowladda ay isku dayeen inay xaaladda gacanta dowladda ku soo celiyaan. Jenaraalka ayaa sidoo kale sheegay in marnaba aysan ogolaan doonin afgembi aan sharci ahayn. ciidanka militariga ee Suudaan ayaana sheegay inay la wareegeen xarunta sirdoonka ee dalkaas halkaas oo ay gadood ka sameeyeen ciidamo mar daacad u ahaa madaxweynihii xilka laga tuuray Cumar Xasan al-Bashiir. qarax iyo dhawaqa rasaasta ayaa shalay laga maqlay caasimadda Khartoum waxaana hareeraha wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi laga soo dhoobay taangiyo weli baabuurta gaashaaman taas oo xiisad iyo walaac amni ku abuurtay dadka reer Suudaan. wararka waxay sheegayaan in hadda la kala diray sirdoonkii Suudaan waxaana ciidamada gadoomay markii dambe la sheegay inay tageen xaafadda Kafuri ee bariga Khartoum kadib markii lagu heshiiyey in ay isdhiibaan. gadoodka ciidamadan waxaa kale ay keentay in la xiro garoonka diyaaradaha ee caasimadda Suudaan waxaana dowladda ku tilmaamtay gadood ka dhashay ciidamo aanan mushahar la siinin. waxaase jira walaac la qabo ah inay isku dayeen inay manjaxaabiyaan heshiiskii siyaasadeed ee Suudaan. jenaraal maxamed hamaad oo ah sarkaal sare oo ka tirsan golaha talada Suudaan ayaa madaxdii hore ee sirdoonka Saalax Goosh ku eedeeyey inuu ka dambeeyey qalaasihii ka dhacay waddanka. inkastoo falkii ka dhacay Khartoum aanu ku tilmaamin afgembi haddana wuxuu sheegay in aan marnaba loo dulqaadan doonin. sida la sheegayna dhowaanahanba magaalooyinka dalkaasi Suudaan waxaa ka jira dhaqdhaqaaqyo ciidan kuwaas oo ay sameynayaan ciidamo hore daacad ugu ahaa madaxweynihii xilka laga tuuray. ciidamo ka tirsan sirdoonka Suudaan ayaana baraha bulshada soo dhigay muuqaal muujinaya askar xabad kor u ridaya. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa soo warantay in ciidamo gadoodsan ay isku gadaameen dhismo u dhow garoonka diyaaradaha. sidoo kale wakaaladda wararka AFP ayaa sheegtay in 5 qof ay ku dhaawacmeen qalaasihii shalay ka dhacay Khartoum. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in ciidanka dowladda ay la wareegeen dhammaanba dhismayaashii markii hore isku gadaameen ciidankii ka tirsanaa sirdoonka ee gadoomay. kooxda ugu weyn kooxdii dibadbaxa ka dhigay dalka Suudaan ayaa ku baaqay in la joojiyo howlgallada argagaxa ee ku beeray shacabka Suudaan. ugu yaraana 170 qof ayaa la sheegay inay ku dhinteen xilliyadii ay ka socdeen dibadbaxyada dalkaasi Suudaan iyadoona sidoo kale ay ka dhalatay in dad badan ay ka barakaceen dalka Suudaan oo qaarkood u hayaamay wadamada u dhow dalkaasi Suudaan. inkastoo dadka qaar
ay sheegayaan in ciidamada militariga ee dalkaas la wareegay aysan ilaa iyo hadda sameyn isbeddel xoogan oo ku aadan nolosha dalka suudaan, waxaana ciriiri ku jira dhammaanba sicir barar dhanka nolosha ah oo ay ka mid tahay cuntooyinka dalkaasi suudaan. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayna qaybtii koowaad. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.